munaasabadda kowda luulyo ayaa lagu qabtay magaalada Eskilstuna ee waddankan Sweden 64 sanad guuradii ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ay ku xoroobeen gumeystihii Talyaaniga isla markaana Israaciil gobolada koonfur iyo waqooyi 1960kii munaasabadan waxaa soo abaabulay ururka dhalinyarada san ka dhisan magaalada Eskilstuna ee waddankan Sweden munasabada sanadka waxaa ka soo qayb galay safaaradda Soomaaliyeed ee waddankan Sweden ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed inoo ah inaan idin kala soo qayb galno maalinta xurriyadda kowda luulyo 33 sano kadib waxaa dib loo furay safaaraddii Soomaaliya ee boqortooyada Sweden maanta waa maalin weyn waa maalintii aan xornimada Soomaaliya dhan ay qaadatay shanta Soomaali waa maalintii ay dagaalkii uga xorooday gumeystihii maantay waxaan u taaganahay maalinta calanka kaliya ma aha isbuucan dhan waa isbuuca xornimada isbuuca midnimada iyo isbuuca wanaagga iyo Soomaalinimada Soomaaliya sidoo kale waxaa goobta wacdara ka dhigay Maxamed Cabdiqani oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Eskilstuna قلوبا علنك ذو عينه هيا إنك كنوا عركو كلاي يا عبد الله هيا munaasabadan waxaa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada taariikh ahaan marka loo eego waxaan maanta xusaynaa sanad guuradii 64aad ee ka soo wareegatay maalintii aan ka qaadanay gumeystaha xorriyadeenna oo aan ku midownay inaan ka shaqayno danaha dadkeenna iyo dalkeenna maasha Allah ugu horeyn waxaan doonayaa inaan halkan anigoo ku hadlayo magaca dhammaan reer Eskilstuna iyo magaca dhalinyarada ururka san ee soo diyaariyay barnaamijkan waxaan doonayaa anoo ku hadlayo dhammaan magacooda inaan idinku soo dhaweeyo xafladda tan ama munaasabadda tan qiimaha leh ee kowda luulyo oo ku aadan maalintii xornimada Soomaaliya ee gobolada waqooyi iyo koonfur ay midoobeen waxaan mar kale leeyahay qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaada maalinta xorriyadda Soomaaliya oo ka mid ah toddobaadka xorriyadda Soomaaliya ee 2024 magaalada Eskilstuna welkomna alla Sätihin Mår ni bra? Ja, det är bra. Det är fantastiskt roligt att få vara här idag och dela den här glädjen i det här mötet tillsammans här på torget i Fröslunda. Jag heter Johan Lidén och är kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden nu från och med den 1 juli. Och jag känner mig hedrad som har blivit inbjuden för att komma hit och dela det här med er. Men också för att säga några ord just om hur viktigt sådana här möten är. وليلى إسحاق وكيماتي استقلال وكيماتي نامانت بالتا فرحة بدن على قات مالين سرير Eskilstuna ما شاء الله درين كي يقولون هاتي ما أنت مسوي بكرة ومركي يقول رئيس أركو عالم كصومالي وعرك كوب بناي ما شاء الله هذا وفرح سناي رير Eskilstuna ورنهات وانا متشين غير هذا يفرح إذا ما أنت لبسوا بكرة هم بلي كود اللولي دمان صومالي ugu dambeyntii waxaa laga taagay bartamaha magaalada Eskilstuna calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxaana la daaray astaanta qaranka
saabir cilmi yuusuf warbaahinta qaranka Sweden